ma dhagaysataa barnaamijka tubta nabadda dhagayso waa barnaamij uu soo saaro xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM tubta nabaddu waa barnaamij toddobaadle ah oo kula socodsiinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo laga wada doodayo warar iyo waliba siyaasadda dhagayso jimcaha waliba haddaba saaro idaacadda aad ugu jeceshahay oo dhagayso barnaamijka tubta nabadda waana u mahad celinayaa barnaamijkan oo runtii tubta nabadda waxyaalo badan oo bulshada muhiim ah waana dadka ku xiran baa ku jira uu soo saaro xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM tubta nabaddu waa barnaamij toddobaadle ah oo kula socodsiinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo laga wada doodayo warar iyo waliba siyaasadba dhagayso jimcaha waliba haddaba saaro idaacadda aad ugu jeceshahay oo dhagayso barnaamijka tubta nabadda waana u mahad celinayaa barnaamijkan oo runtii tubta nabadda waxyaalo badan oo bulshada muhiim ah waana dadka ku xiran baa ku jira ku xirnow idaacadaha baahiya barnaamijka tubta nabadda ma dhagaysataa barnaamijka tubta nabadda dhagayso waa barnaamij uu soo saaro xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM tubta nabaddu waa barnaamij toddobaadle ah oo kula socodsiinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo laga wada doodayo warar iyo waliba siyaasadda dhagayso jimcaha waliba siyaasadba dhagayso jimcaha waliba haddaba saaro idaacadda aad ugu jeceshahay oo dhagayso barnaamijka tubta nabadda ma dhagaysataa barnaamijka tubta nabadda dhagayso waa barnaamij uu soo saaro xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM tubta nabaddu waa barnaamij toddobaadle ah oo kula socodsiinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo laga wada doodayo warar iyo waliba siyaasadba dhagayso jimcaha waliba haddaba saaro idaacadda aad ugu jeceshahay oo dhagayso barnaamijka tubta nabadda waana u mahad celinayaa barnaamijkan oo runtii tubta nabadda waxyaalo badan oo bulshada muhiim ah waana dadka ku xiran baa ku jira ku xirnow idaacadaha baahiya barnaamijka tubta nabadda salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal saaxiibayaal meel walba ay joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nabad oo aad ka dhagaysataan radio isnaya stuudiyaha magaalada Jowhar ma dhagaysataa barnaamijka tubta nabadda dhagayso waa barnaamij uu soo saaro xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM tubta nabaddu waa barnaamij toddobaadle ah oo kula socodsiinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo laga wada doodayo warar iyo waliba siyaasadba dhagayso jimcaha waliba haddaba saaro idaacadda aad ugu jeceshahay oo dhagayso barnaamijka tubta nabadda waana u mahad celinayaa barnaamijkan oo runtii tubta nabadda waxyaalo badan oo bulshada muhiim ah waana dadka ku xiran baa ku jira ku xirnow idaacadaha baahiya barnaamijka tubta nabadda waa hagaag dhegaystayaal mar kale maalin wanaagsan magacaygu waa Abdaxsiis Xasan Macalin waxaa idin la socodsiin doonaa barnaamijka tubta nabadda ee toddobaadkaani markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nabadda qaybtiisa 263 guutaale Fatxi ayaa si wada jir u soo wada jeedin doona kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 263aad ee barnaamijka tubta nabadda toddobaadkan dhagaystayaal waxaan barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa hanaanka doorashooyinka dalka iyo tallaabooyinka horumarka leh ee ilaa iyo hadda la sameeyay iyadoo lagu guda jiro xilliga doorashada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa muuqda
in horumar la taaban karo laga gaaray hanaanka doorashada soomaaliya iyadoo islamarkaasina lagu guuleystay in lasoo doorto ilaa iyo 52 kursi oo ka mid ah kuraasta 54 ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. dhinaca kale waxaa iyadana si rasmi ah dalka uga bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose iyadoo dhowaan magaalada muqdisho lagu doortay 2 xubnood ee ugu horeysay golaha aqalka hoose ee baarlamaanka 11aad ee dalka Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhowaan xubnaha gudiyada doorashada ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleed intaba ugu baaqay inay dardar geliyaan hanaanka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. haddaba si aan xog ogaal ugu noqonno habsami u socodka hanaanka doorashada dalka iyo halka ay wax marayaan ayaa waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelano afhayeenka guddiga doorashada heer federaal Axmed Aadan Dagaal. waxaana aan ugu horreyn weydiinay su-aasha ah waa sidee xaaladda doorashada dadban ee sanadkan 2021 maxayse tahay qiimeynta guddigu sameynayo ee ku aadan hanaanka doorashada dalka. doorashada dadban waxay ka duwan tahay doorashada caadiga ee la yidhaahdo one man one vote hal qof iyo hal cod. waa doorasho aad iyo aad runtii uga dhib badan doorashada la yaqaano ee dunida ka dhacda. insha allahu tacaala doorashada fudud ee bulshadu codayso ee ummaddu ku wada qanacsan tahay waynu gaadhi doonaa haddii ilaahay idhaahdo. doorashada dadbani waa ergooyin dooranaya muxuu ahaye xildhibaanada. ergooyinku waxay ka imanayaan beelaha, waxay u qaybsan yihiin 4/5 beelaha. waxaa lagu soo xulayaa hab dhaqan oo beelaha ayaa dhaqankooda iyo bulshada rayidka ayaa soo xulanaya ergada reerka ee matalaysa oo tiradoodu tahay 101 qof. murashaxa u tartamaya ee beeshaas ee kursiga xaqa u leh inuu ku tartamo wuxuu u imanayaa guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayuu iska diiwaan gelinayaa. kursigii kasta waxa ku tartami kara ugu yaraan laba muxuu ahaye ruux iyo in ka badan. 101 ergo ayaa dooranaysa. sidaasaana uu ku soo baxayaa xildhibaanku. maalin keliya dhici mayso doorashada dalku waa 300 iyo ziyaado dhowr iyo 20 xildhibaan 275 xildhibaan oo golaha shacabka ah weeyaan iyo 54 xildhibaan oo aqalka sare ah oo waxa dooranaya baarlamaanada isaga dooranaya madaxweynayaasha maamul goboleedada ayaa soo jeedinta leh. marka runtii waa doorasho aad iyo aad uga dhib badan. intii la filayay muddo dheer bay soo jiitamaysay ilaa haddana way socotay. afhayeen jadwalka lagu dhammaystirayo hanaanka doorashada dalka dib ayaa dhowaan loo cusboonaysiiyey. marka maxay yihiin tallaabooyinka xiga ee jadwalka doorashadu tilmaamayo? jadwalka doorashada ee aanu soo saarnay waanu ku guda jirnaa. waxaanu soo saarnay Sebtembar dabayaaqadiisii. wuxuu ka bilaamayay 1 Oktoobar wuxuuna ku eegayay 20 Noofembar oo bishan ay ku jirna ah. waanu ku guda jirnaa shaqadiina alxamdulillaah rabbil caalamiin waa bilownay. laakiin waxay u eg tahay sida muuqata inuu jadwalka dib looga dhacayo oo dib loo dhaafayo. laakiin waxaanu ku dadaalaynaa oonu ku rajo weynahay inaanay waqti badan dhaafin haddii ilaahay idhaahdo. afhayeen dhinaca kale waxaad nooga warantaa ma jiraan wax caqabado ah oo guddiga doorashadu weli la kulmayo oo ku aadan awoodaha shaqo? sidaas caqabadahaas wax uga qabanaysaan? runtii doorashada dadban mar walba caqabadeedu aad bay u badan yihiin. iyadaaba caqabad socotaa baad odhanaysaa oo doorashadii kale ee shacabku codayn lahaa bay caqabad ka noqotay lagaga hor istaagay. haddana caqabadaha jira mar walba waa kuwo laga gudbi karo, waa kuwo technicala. runtii saad ka waraysid gaari markaad dhaqaajinaysid waa inay dhammaan muxuu ahay gaarigaas wuxuu u baahan yahay oo dhan ay ku dhamaystiran yihiin. waa in taayiradii uu leeyahay, mashiinkii saaran yahay, gaaskii uu ku dhaqaaqay jiro, waddadii ay muxuu ahay available tahay, darawalkii kaxaynaya uu diyaar yahay. sidaas si lamida doorashada dadban waa in maamul goboleedkii diyaar yahay, guddiyadii doorashada diyaar yihiin, ay tababaran yihiin, dhaqaalihii doorashada la hayo, amnigii uu dhammaystiran yahay. runtii maalin walba caqabad baanu ka gudbinaa doorashada, kolba buur baanu ka saarnaa. imaka meeshii ugu fiicneed bay maraysaa. caqabad buurani ma jirto.
waxaanu rajaynaynaa inaanu isla jaan qaadno annaga iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada. afayaan iyadoo la eegayo casharadii laga bartay doorashadii aqalka sare ee baarlamanka, sidee loo hirgelinayaa qoondada haweenka ee 30% ah ee golaha shacabka? runtii qoondada haweenku meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa. baarlamankii tobnaad ee 2016 la doortay, tiradii u soo baxday haweenka waxay 24%. hadda oo aqalkii sare oo keliya ta aanu dhammaynay oo 2 xubnood oo keliya weliba ka harsan yihiin, aqalka sare ee imika dhammaaday 25%. waxaanu rajaynaynaa iyadoo doorashadii golaha shacabkuna ay dhiman tahay, waxaanu rajaynaynaa in 30% iyo ka badanba hablahaynu ay ku guulaysan doonaan haddii ilaahay idhaahdo. aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa afayeenka guddiga doorashada heer federaal axmed aadan dagaal oo barnaamijka tubta nabadda u waramayey. doorashada sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in haweenku ay helaan ugu yaraan kuraas u dhiganta qoondada loo asteeyey ee 30% ah, iyadoo ay socdaan dadaallo xoogan oo ay wadaan ururada iyo guddiyada ay leeyihiin haweenku. welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda, hase yeeshee aan markan u gudubno faadumo maxamed cabdulaahi oo ah madax hoosaadka guddiga doorashada heer federaal ee arrimaha jendarka oo aan iyadana waraysi la yeelanay. waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal inay nooga waranto howlaha ugu dambeeyey ee guddiga doorashada dalku ku taageerayo haweenka soomaaliyeed si loo meelmariyo qoondada loo asteeyey ee 30% ah ee golayaasha baarlamanka soomaaliya. guddiga doorashooyinku waxa ay u taagan yihiin ama hadda diyaarsan sidii loo xaqiijin lahaa 30% golaha shacabka. waxaa hadda noo diyaarsan ama aan shaqo ahoo aan noo qabsoomays inkastoon de weli la bilaabin aqalkii oona hadda ku dhehaynin intaas baa noo qabsoonto waa la qabtay, laakiin waxaa nooga qorsana wuxuu yahay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka 30%. waxaan samaysanay ama aan haysanaa oo aan hadda ku shaqo galayna hadduu ilaahay yidhaahdo wax la yidhaahdo maabinkaasoo 770 laba waa la doortay, haween ma aha, haweenno kuma jiraan. waxaa noo dhiman 273 maamul goboleed walbo waxaan ka rabaa in aan ka helo inta percenti lagu leeyahay haweenka ama inta ka imaan karta 30% ama 30 qoondada haweenka. taasaa nooga qorshaysan insha allahna aan rabnaa isbuucaas ka socdo iyo isbuuca ka dambeeya markii la bilaaboba inaan ku hawlgalno. faadumo, maxay tahay in la sameeyo marka la eego tallaabooyinka xiga ee hanaanka doorashada sanadkan 2021 si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% ah? waxay habar yar ku imaan kartaa wada shaqayn ka timaada qof walba iyo cid walba oo ay qusayso xaqiijinta qoondada haweenka. oo ugu horreeya guddiga hirgelinta doorashooyinka, guddiga maamul goboleedka, guddiga SID, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo saan ognayba hadda doorashada mas-uulka gacantana ku hayo. inteenaas oo iskaashanayso iyo cid walba oo gacan naga siinayso waxaan diyaar u nahay in la wada xaqiijiyo lagana wada shaqeeyo, qof walbana meesha uu joogo oo qoondada haweenka danaynaya ama uu rabo in uu maaragtay qaybteeda ka qaato, si walbaba ha uga qayb qaato, inay ka qayb qaataan lana xaqiijiyo lanana keeno dhahay hala keeno oo alla subxaanahu watacaala ku xiranta wixii imanayo iyo wixii la helayo. laakiin dadaalkeedii in aan la nimaadno oo inteenaas oo dhan oo isku duuban oo iswadato in aan maaragtay ku dadaalo aan wixii aan ka fulin karnana aan ka fulinay sidii aan u xaqiijin lahayn 30%. haddaan hadda wax yar dibka ugu laabto, waxaa noo dhammaaday aqalkii sare oo ay nooga dhiman tahay 2 xubnood, 52 waxaa la doortay senatar, 52daas senatar waxaa ka soo baxeen 14 gabdhood. ma aha 30%, laakiin waxaan helay iyada oo 2016 ay ahaayeen gabdhihii soo baxay 13 inoogu jirto hal extra gabadha. sidii la sheegay roobana hal mar laguma dhisine. maxay ahayd waxaan rajaynaynaa haddiiba hadda aan 14 helay waxa waaye waa wax fiican oo horumar leh in aan inta kalena oo aqalka hoosena aan haddaan 30 helin at least inaan soo buuxino, laakiin inaan 30 inaan ku helo 30% golaha shacabka. faadumo, maadaama aad guddiga doorashada heer federaal u qaabilsan tahay arrimaha jendarka
ururada iyo guddiyada haweenka u ololeeya ma kula soo xiriireen oo ma ka wada hadasheen qoondada haweenka? waxaantiisaan ognahay ururada haweenka sida bulshada rayidka iyo maxay ahayday ururka haweenka ama luuqada kale lagu yidhaahdo goodwill ambassador waan iska aragnay wax laakiin waxa waaye wada shaqayntuna way noo socotaa waana wada shaqaynaynaa insha allah hadduu alla subxaanahu watacaalana anagoo iswada kaashanayna gabdha ahaan soomaaliyeed urur la'aan koox iyo koox la'aan kulligeenna waxaan nahay hal far waana wada shaqaynaynaa anifaada ma ahaane waa la gabdhaha oo gurwala hadda aad iyo aad iyaguna ugu dadaalaya maaragtay si iyaguna dhinacooda iyo qaybtooda ay uga qaadan lahaayeen xaqiijinta qoondada haweenka insha allahna waana wada shaqayn fiican oo dambana waana sii dhex mari doontaa waxaan aniha iyagu hayaanba waxaan u wada soconaa waa wax halkaas wax oo goldigeenna ama achievement ama guusha inaan gaarna aan rabno inay tahay gabdhaha 30% siday u heli lahaayeen insha allah hadduu alla subxaanahu watacaala dhinaciisana nooga ogolaadana